horyaalka Premier League galabta waxaa jira kulamo xiiso leh. Horyaalada kalena kulli kulamo la ciyaaraya, laakiin haddii aynu ku bilowno horyaalka Premier League Ingiriiska galabta ciyaaraha la ciyaari doono waxaa ka mid ah kulanka u dhaxeeya ugu soo horeeya waxa uu dhex maraya kooxaha West Ham iyo kooxda Liverpool. Liverpool intii dambe ciyaaraheeda sidii hore u ciyaari jirtay uma ciyaaraynin, aad uma fiicneen. Kulankii u dambeeyayna ee Premier League-na waa laga badiyay. Imika saddexdii kooxood ee ku tartamay horyaalka Premier League England waxay moodaa kooxda Liverpool inay iyadu ka hadhay, laakiin weli Arsenal iyo Man City ayaa dagaalka ugu badan ee sanadkan ku guuleysiga Premier League u dhex maraya. Kulankaas laftiisu waa kulan xiiso leh. Kooxda Liverpool sida aynu sheegnay waxa weeye ciyaaraheedii u dambeeyay ma soo bandhigin ciyaaro qurux badan oo taageerayaasha ku qancaan. Kulankii u dambeeyay ee derby Merseyside waa laga badiyay oo 2-1 looga badiyay. Marka Liverpool ciyaarahan dambe aad uma fiicna, wax laga yaabo waa kii tababarku sheegay inuu ka tagi doono kooxda xilli ciyaareedka sanadka. Isaga laftiisu saameyn buu ku yeeshay oo waxa suurtagal ah ciyaaryahanno badan ba tababarayaasha awgooda jooga. Marka wax dhici kara, laakiin sidoodii ay u fiicnaayeen iminka uma fiicna. Bal kulankaas iyo sidoo noqdana iyada lafteeda waa arki doonaa. Kulamada kale ee Premier League la ciyaari doono waxaa ka mid ah Fulham iyo Crystal Palace. Manchester United waxay la ciyaari doontaa kooxda Burnley. Kulankeedu dambeysay way badisay. Manchester United iyadoo kulanna waa badisay, kulanna waa laga baday. Mid bareejo gashaa marka kaalmaha 6 iyo 7 meelahaasay inta badan ay ku meeraysataa. Sidoo kale Newcastle United oo ay Crystal Palace ka soo badisay ayaa iyaduna Sheffield United la ciyaari doonta. Wolvesna Luton bay la ciyaaraysaa. Everton oo toddobaadkii dhawta soo garaacday kooxda Liverpool waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Brentford. Kooxdan Everton koox sahlan maaha. Dhowr iyo 10 dhibcood baa laga jaray, haddana imika aggregate-kii way ka baxeen. Koox weyn oo Liverpool oo horyaalka ku tartamaysana waa kuwii ka badiyay. Marka kulanka laftiisu kulan sahlan maaha. Kulanka kalena waxa u dhaxeeya Aston Villa iyo Chelsea. Chelsea xaaladdeedu waa iska wagash oo iyada lafteedu aad uma fiicna. Aston Villa iyadu waxa kaalmaha loogu soo baxo Champions League ayadii Tottenham aad isku wareeganayaan. Marka kulanka laftiisu waa kulan xiiso leh. Kulamada kale jira waxaa ka mid ah Spain haddii aynu eegno Atletico Madrid ayaa la ciyaari doonta Atletico Bilbao. Sidoo kale Serie A Talyaaniga kulan adag baa jira oo u dhaxeeya Juventus iyo AC Milan. Kulankaas waa kulanka adag ee ka dhici doona Serie A Talyaaniga galabta. Haddii aynu eegno horyaalka Jarmal, kooxda Bayern Munich ayaa la ballansan Frankfurt. Kooxda Borussia Dortmund waxay la ciyaari doontaa RB Leipzig. Marka kulamadaas ayaa ugu muhiimsan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub.